Tale boqor nugood kuma war degdeg hadana soo gaaray wuxuu tilmaamayaa in xukuumadda iyo ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday taasoo imaaday markii saaka aan shir hore aan loo sii faafeyn oo ajado ayna nooc kale laga doodo ay ka doodeen in xilka qaadistan oo golaha shacabka ka dhacda ayaa si la yaab leh u saameysay xildhibaanadii golaha wasiirada ah waxayna hal mar afka wada furteen ku qaylinaya waxaas waa been iyo waxaas wax jira ma aan gudoomiyaha golaha shacabka mursal oo sheegay in ninka la yiraahdo laga qaaday xilka ayaa sidaan u hadlay intaas kadib waxa usuna hadlay xildhibaanka wasiirka amniga wuxuuna sheegay in waxaasoo yihiin wax lama filaan ah oo gudoomiye isagoo gurigiisa jiifa ay la mid ahayd isagoo sheegay camal taasna aan wax la aqbalay doonin ay tahay wuxuuna yiri sidaan asxaabta rungood media waxaan mar walba in ka raali galeyna codka aad u liciifa maadaama ay codka aan ku duubayn oo yahay mid hooseeya marka intaas ka bacdi waxa dhacday in gudoomiyaha golaha shacabka mursal inuu intaas ka bacdi isaga baxay hoolkina buu ka taagan yahay xaaladda siyaasaddu aad bay u kacsan tahay marka wixii soo kordha halkaan ku soo tibi doona insha Allah like da sharna si faafiya